14 howlgalkan ciidanka booliisku ay ka sameeyeen xaafadaha degmada xeebeedka Hobyo ayaa kamid ahaa dadaalada lagu xaqiijinayo ammaanka gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal iyo gudoomiyaha ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale ayaa kormeer ugu tagay ciidanka shaqada ku howlana taliyaha saldhigga booliiska degmada Hobyo Bashiir Cilmi Geedi ayaa gudoomiyaasha faahfaahin ka siiyay qorshayaasha amniga lagu sugayo si gaar ah waxaan sameeynaa batuuliyo roondadii ayaan magaalada ku wadnaa habeen kasta sidaan baan u rodnaynaa gudoomiye soo dhawow baan ku leenahay aad baan ugu faraxsanahay in caawa nagala qayb gashaan aad baan idin soo dhaweynaynaa shaqadeenu sidaan u socotaa habeenkii maalintiina sidoo kale u socotaa aad baan ugu faraxsanahay in noo timaadid waxaan hayna nala aragtid qolayska aanu hayna nala aragtid nagala qayb qaadatid waxaan aad ugu sii faraxsanahay misna caawa inaan nagala qayb gashay aad baad u mahadsantahay gudoomiye ku-xigeenka degmada Hobyo Maxamed Cawaale ayaa sheegay in Hobyo ay nabad tahay ciidankuna ay shaqeeyaan iyo taliyay degmada dhamaantood caawa waxa u jeedaa ciidamadii booliiska oo rondeynaya degmada habeen kastana jawiga saasi u sameeyaan isbedelka magaalada iyo amnigeeda 100% ma sha Allah weeye dadkan way isku kala soo yihiin shacabka iyo booliiskan way wada shaqeeyaan gudoomiye hadda maadaama soo gaartay degmada Hobyo kormeer ku joogtay waxaad u jeedaa inay degmadii iyo maaragtay ciidankii iyo shacabkii wada shaqeynayaan waxaan rabnaa insha Allah tacaala kuwa kalena inay nagu daydaan oo degmada Hobyo maanta ma sha Allah dagadii u furan tahay dhaqdhaqaaqeedii jawigeeda degan yahay dhulkeeda barwaaqaysan yahay amnigeeda okay yahay in maaragtay Ilaahay noo siyaadiyo gudoomiyaha gobolka Mudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa ku amaanay ciidanka booliiska degmada Hobyo shaqada qaran ee bulshada u hayaan isagoona sheegay inay jiraan baahiyo kala duwan oo ay qabaan ciidanka booliiska Hobyo oo la xiriirta dhinaca gaadiidka in ciidankaani amniga sugo habeenkii rondeeyo dadka nabadgelyada wixii dhibaayo ogaado tuugo ogaado waa wax loo soo sheegay oo maamulku amray waxaan ka rabaa ciidamada booliiska iyo ciidamada marinaysa degmada jooga military ma joogo labada loogu talagalay waa badda iyo bariga marinayska tiga jooga way isxoojinayaan labada marka labada shaqa ka dhaxaysa way isxoojinayaan marka waxaan rabnaa maadaama baahi badan laga sheegay waliba marinayska uusan hayn meel agab uu badda ku furo wax ku baaro wax ku celiyo iyo xarun ay degan yihiin oo ciidan riigli u joogo booliskana uusan awoodii boolisu sahayn dowladda galmudug iyo federaalba waxaan ka codsanaynaa inay nala xoojiyaan labada ciidan haddaan la xoojin degmadan waxay ku dhisan tahay boolis iyo marines howlgalkan ciidanka booliiska ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada xeebeedka Hobyo ayaa qayb ka noqonaya dadaalada lagu jiro xoojinta ammaanka deegaanada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug waa mid cadeynaysa nabadda iyo horumarka ku tilaabsanayso magaalada xeebeedka Hobyo Baashi Cali Xaashi warbaahinta qaranka Hobyo